Welcome hadda waxaan hayaa sheeko ka dhacday dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Arizona. Sheekadan waxaa dhibban u ah gabar lagu magacaabo Sarah. Sarah oo 21 jir aabaheed yahay Moroccan, hooyadeedna tahay Irish American. Waxay ku dhalatay ku barbaartay dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Arizona. Sarah waxay isbarteen wiil lagu magacaabo Andres waxa uu magangelyo ahaan ugu joogaa dalka Mareykanka oo waxa uu kusoo galay si sharci darro ah, waxa uuna la nool yahay wiil ay adeer afraad yihiin. Andres maadaama uusan sharci haysan, shaqana haysan, nololna iska badaa oo culays ku hay saaxiibkii, waxa uu habka tenderka ka bartay gabar lagu magacaabo Sarah. Isbarasho iyo sheeko dheer, Andres iyo Sarah waxaa dhexmaray xiriir. Dhanka kale, Sarah waa gabar kaligeed nool oo aabaheed iyo hooyadeed goor hore ay geeriyoodeen, raadinaysana nolol qof ay dhistaan oo ay famil samaystaan. Laakiin nolosha ay ku riday nin damaciisu yahay sharci iyo magangeliso ku heli lahaa. Andres markuu ogaaday in Sarah ay si waali ah ay u jeceshahay, xilligii guurkoodana uu soo dhawaaday, waxa uu u sheegay xaqiiqada. Waxa uuna yidhi, anigu waxaan ahay asaalam sii karaa, wax sharci ahna halkan kuma haysto. Sarah midaas walwal kuma aysan abuurin oo ay ka aqbashay, sidaa ayayna ku aqalgaleen labadooda. Sarah waxa ay CEO ka ahayd company aad u weyn, waxayna midaas ka caawisay in Andres uu helo shaqo weliba aad u level sareysa, waana meesha ay ka bilaabatay iqaabta iyo godka mugdiga ee nolosheeda ku riday. Waxay labadooda halgab ka wada shaqeeyaan. Andres waxa uu aad ugu xumaaday ka hoos shaqeynta xaaskiisa iyo dadka company ay kala shaqeeyaan, uusan ka helinin wax ixtiraam ah. Dadka ay goobta ka wada shaqeeyaan ay ugu yeeraan mudanaha ninkeeda, magaciisana aysan ba aqoonin. Andres midaas waxay ka dhigtay qof aad u waalan, waxa uuna aad ugu xumaaday dhaqamadaas oo kala kulmaya dadka meesha ay ka wada shaqeeyaan. Taasina waxay ku abuurtay inuu cadaawad xun u qaado marwadiisa. Andres waxaa isbedelay dhaqamadiisa, waxa uuna noqday qof nolosha ka dhacsan oo tooy ah, habeenkiina soo mara kalaabiyada, gurigan uu soo hoyda asigoo cabsan, dawladiisana hore usii wata. Sarah oo la yaaban isbedelka ku dhacay Andres ayaa waxa uu asigoo cabsan ugu sheegay historiga oo dhan iyo waxa ku sababay inuu nolosha ka dhaco. Sarah oo raadinaysa xal uusan gurigeeda ku dumin, waxa ay go'aansatay in ay ruqsad ka qaadato kambaniga ay CEO ka ahayd si uu ugu yaraan Andres u helo nafis nolol. Ugu dambeyn, bil ay guri joogto ahayd, Andres oo faraxsan waxa uu ka codsaday Sarah in ay vacation aadaan. Sarah waxay ku faraxsaneyd isbedelka ku dhacay Andres, aadna waxay ugu faraxday in uu ninkeeda dhaqankiisii hore dib ugu soo noqday. Laakiin sidaa ma aho, Andres wax isbedel nololeed ah kuma dhicin oo weli waxa uu u hayaa xarash xaaskiisa. Andres iyo Sarah waxay vacation u soo aadeen UK London. Andres halkaa waxaa ku sugayay saaxiibkii oo streetka ku jira, kana ganacsada waxyaalaha sharci darrada. Waxa uuna ka codsaday inaysan hotel degin oo uu apartment u kirayay labadooda. Sarah iyo Andres waxa ay degeen apartment, waana waqtigii ugu dambeeyay. Sarah juuq iyo jaanteeda meeshay dhigtayba la maqlin lana arag. Muddo kadib, Andres waxa uu kusoo noqday Mareykanka, waxa uuna ka guuray gobolkii uu tagnaa, waxa uuna degay New York maadaama qoftii problem ku ahayd uu soo gabagabeeyay nolosha badhaaf. Sheekada lamaanahan waxaa saddexeeya ka ahaa oo xogogaal ka ahaa Sarah saaxiibadeed oo la socotay saaxiibteeda Sarah wax walba oo nolosheeda kusoo kordha. Andresna midda uma uusan ogin oo waxa uu moodayay in Sarah aysan lahayn qof kale ay u heshato, dilkeedana uusan wax tixraaca ah laga heli doonin. Sarah saaxiibadeed Diana waxa ay booliska ku wargelisay in saaxiibadeed aysan ka warhaynin meesha ay ku dambeyso. Marka ugu wada dambeysana ay ka hadlaysay khadka ayna ku sugnayd London. Kiiskii waxaa baaritaankiisa galay booliskii. Baaritaan dheer kadib, Andres waxay booliisku uga tageen apartmentii uu ku degnaa New York, waxaana lagu yiri xaaskaagii maydi. Andres oo shoogsan hadalkii dhanaa buu ku dhagay. Boolisku waxay yidhaahdeen, adiga xaaskaaga marka ugu dambeeyay waxaad isku raacdeen UK, keligaan ayaana soo noqday, waana cadeymihii CCTV footage-ka ee ka qabatay garoonka. adiga iyadoo soo socda ayaa baxday, keligaada waa soo noqotay, maxaa khaldan, maxaa xaaskaaga ku samaysay? Andres waxa uu ku jawaabay, marka aan UK tagnay aniga iyada dagaal yaraan dhex maray, waa isku xanaaqnay, aniguna kadib waan ka tagay, halkan ayaana kusoo noqday. Booliska waxa ay ku yidhaahdeen, intii cadeema sax aan ka helino iyo Sarah meeshay ku dambeeydo, adiga waxaa tahay victim. Booliskii oo kaashanaya ciidamadii Ingiriiska waxa ay baaritaan ka bilaabeen apartmentkii, waxaana la ogaaday apartmentkii inuu kireeyay
ninba faldambiyeed badan lagu soo qabtay, kiis badan ay ka yaayaan saldhigga. Ninkii gaangistarka ahaa ayaa la raadiyay, waa la soo qabtay, waxaana lagu yiri war gabadhu maxaa ku samayseen. Ninkii odayga ahaa wax walba oo dhacay waa uu caddeeyey, waxa uuna yiri aniga waxaa arrintaas arkay igu siiyey saaxiibkayga, waxaana igu yiri hoteelka howlgalka kuma fuli karno ee apartment oo kirey. Apartmentkii markaan kireyey kadib isla habeenkii ugu horreeyay ayaan boqosha qabanay. Gabadhii waan dilnay, kadib jirkeeda waan jarjarnay, boorsana ku ridnay, waxaana ku soo aasnay jangalka. Yaab iyo amakaag ayaa ku dhacay booliskii. Ninkii odayga ahaa waa la soo qabtay, asig aan dareysna waxaa lagu xukumay xabsi daa'in. Ugu dambeyn dhalinyaro ay ka digtoonaada qof aadan aqoonin oo aad xiriir nololeed dhisanaysa taxadar.